72 saac ayuu u qabtay ciidanka raxweyn inay kaga baxaan Baraawe waliba magaalada banaankeeda inay tagaan ayuu amray ilaa amar dambe balse amarkaasi Mahad Salaad ka soo baxay ayay beesha raxweyn u arkaan mid yasitaan ahi jawaab kulul ayayna indhaha ka saareen beesha raxweyn Mahad Salaad ciidamo gurmad ah ayaa baydhabo iyo deegaanada ku dhow ka soo ruqaansaday waliba jidka oo halis badan ay ka jirto ayay u soo bareereen maadaama xiisada iska qaboobaneed markii hore balse iminka ay dhab noqotay Baraawe xaalad halis ah ayaa ku soo wajahan in lagu dagaalamane wax yar ay u jirtaa balse inta aynu muuqaalka u gudagelin muuqaalka like saar like-tane waxa ay muuqaalka ay ka caawinaysaa in muuqaalku meel dheer uu gaaro lana wadaag dadku u baahan inay la socdaan wararka Soomaalida iyo wararka xasaasiga ah ee ka imaanaya magaalada Baraawe beeshkane like gareysa ama follow taabo si aysan ku dhaafin wararkii warbixinada degdeg ah ee aynu halkan ku soo gudbino wararka aan ka helayna mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in ninkii Mahad Salaad ahaa uu WhatsApp-ka kala hadlay saraakiisha horboodaysa ciidanka raxweyn ee ku sugan magaalada Baraawe waxa uuna u qabtay sida xogaha aynu ku helayna 72 saac in ay magaalada kaga baxaan waliba ciidanka oo dhan ay isugu geeyaan duleedka magaalada ilaa amar dambe balse saraakiisha ciidanka raxweyn ayaa hadalkaasi waxay u arkeen mid yasma ah waxa ayna ugu jawaabeen Mahad Salaad in uu hurdada uu ka tooso iyagoona yiri dhulkayna waa aynu ku dhimanaynaa waxa uuna u sheegay Mahad Salaad in uu Baraawe ku layn doono goordhow gabi ahaantoodaba magaaladana uu ka faramaroojin doono haddii aysan amarkiisa u hoggaansamin taliyaha nabad sugidda ninka la yiraahdo Mahad Salaad ayaa sida la soo sheegayo waxa uu intani oo dhan u sameynayay in ay tahay dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Baraawe in lagu dilay 3 sarkaal oo walaalo dhow ay ahaayeen isagoo taasi ka duulaya ayuu Mahad doonaya in xilka uu haayo uu ugu argudo walaalihii sidoo kale saraakiil ay qaraabo dhow yihiin ayaa iyana dagaalka Mahad Salaad kula jiro iyagoona Mahad Salaad ku qalqaalinaya in walaalahooda uu u argudo inta goor tahay dhanka kale beesha raxweyn ayaa iyana markii uu Mahad Salaad u soo hanjabay waxa ay durba bilaabeen in ay gurmad ay dirsadaan waxaana magaalooyinka waaweyn ee Koonfur Galbeed ka soo baxay ciidamo gurmad u ah beesha raxweyn waxa ayna ciidanka gurmadka ay soo mari doonaan meel ay adag tahay in ciidan dawladda ka tirsani ay sahal ku soo gudbaan saacadaha soo socdo gurmadkii ugu horeeyay ayaa waxa uu soo gaari doonaa magaalada Baraawe iyagoona gurmadkaasi ay kaabi doonaan ciidanka raxweyn ee dagaalka adag kula jiro ciidanka beelweynta Habargidir ugu dambeyntii wararkii warbixinada ka imaanaya magaalada Baraawe waa kuwa xasaasi ah oo marba mar ka sii dambeysay isa soo taraya haddii aad u baahan tahay wararka iyo warbixinadaaba muuqaalka like saar sidoo kale la wadaag dadku u baahan inay la socdaan wararka Soomaalida iyo wararka xasaasiga ah ee ka imaanaya magaalada Baraawe beeshkane like gareysa ama follow taabo si aysan ku dhaafin wararkii warbixinada degdeg ah ee aynu halkan ku soo gudbino